السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي وعن أوناكسن ملكستو الدنيا أتكشوكتان كنا سود وهذا وربحنا ذي قدام بيي عيارها صاحب بيال حريركا كوبادا عقتا إنجليز بريمير ليج ayaa soo saaray ganaaxii laga sugayay ay ku rideen tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo jimcihii sii qirtay inuu aqbalayo in la ganaaxo kadib kaarkii casaanka ahaa uu qaatay ciyaartii Manchester City October 16 ay 1-0 kaga badiyeen kooxda Liverpool. Jurgen Klopp ayaa ka carooday oo hadallo ku tuuray markii hadal loo dhigi waayay Mohamed Salah waxaase uu mar dambe raaligelin ka bixiyay falkii uu sameeyay. FA-ga ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen maanta waxa ay ka sheegeen in Jurgen Klopp lagu ganaaxay 30,000 oo gani ah oo lacag ah oo ay bixinayso maadaama uu jabiyay anshaxa suuban ee ciyaaraha iyo qodobka FA-ga Rule E3 uu garsooruhu ula dhaqmay si ixtiraam aan lahayn. Liverpool ayaa wax war ah ka soo saarin ganaaxa lagu riday tababaraheeda Jurgen Klopp. Sidoo kale tababaraha reer Germany Jurgen Klopp ayaa ka hadal hase yeeshee horey ayuu Jurgen Klopp u sii sheegay inuu aqbalayo in ganaax lagu rido isagoo yiri waxyaabaha qaarkood ayaa ku kicinaya xaaladaha kuma faraxsani waxa aan sameeyay waanan u qalmay gaarka casaanka in la siiyo. qodobka uu xiriirka kubadda cagta Ingiriiska u cuskaday ganaaxa Jurgen Klopp ayaa ka hadlaya ixtiraam darada hanjabaadda iyo aflagaadada ka dhaca garoomada ciyaaraha. Si kasta ha ahaatee Liverpool ayaa mar kale rafcaan ka qaadan karta ganaaxa lagu riday tababaraheeda Jurgen Klopp kadib markii uu jimcadii bishii Maris 16 kooxda Liverpool kulna ay ku yimaadeen Liverpool ay 1-0 garoonka Anfield ka raayeen laakiin tababaraha Jurgen Klopp ee reer Germany uu hadallo anshaxmo ah ku yiri garsooraha ciyaarta maamulayay maadaama aad uga carooday khad lagu galay laacibka reer Masar ee lagu magacaabo Mohamed Salah. saaxiibayaal waxaan eegi doonaa kale super computer sadaalihii koobka adduunka xidigaha waaweyn ee niyadda uu ka jibiyay iyo xanuunka sugaya England uu ka soo jeedo asagu. super computer ayaa sadaal ka bixiyay koobka adduunka ee bisha dambe ee November ka bilaaban doona wadanka Qatar waxa uuna qalbi jab ku riday Cristiano Ronaldo xulkiisa Portugal iyadoo la og yahay in laacibkani uu horay u sheegay in koobkani noqon doono midkii ugu dambeeyay uu xulkiisa u ciyaaro inkastoo uu dhinaca kale xaqiijiyay inuu hunguri ka hayo Euro 2024. Cristiano Ronaldo niyad jab looga bushaareynaya waxaa laga farxiyay Leo Messi oo loo sheegay inuu xulkiisa Argentina kula guuleysan doono koobka adduunka taas oo si cad uga soo afjari doonta tartankii labadan ciyaartoy oo midkoodna aynu horay ugu guuleysan koobka adduunka. Portugal weligeed ma aynan gaarin finaalka koobka adduunka hase yeeshee waxay doorkani tagi doontaa finaalka oo ay isugu imaan doonaan Argentina oo koobkan ka qaadi doonta sida saadaasha super computer sheegay. xulka Ingiriiska ayaa rigoorayaal kaga hari doona koobka adduunka marka ay soo gaaraan sama finaalka. waxa uu sheegay super computer in sanadkan ay iska hor imaan doonaan finaalka koobka adduunka qabsoomi doona dalka Qatar xulka Argentina iyo xulka Portugal waxaan u kala labada xul Leo Messi iyo laacibka waqti dheer soo maamulay adduunka ama ciyaaraha adduunka oo dhan ama qaaradda Yurub laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo hadeerna jaawareer xun ku qaadanaya kooxda reer Ingiriis ee Manchester United. waxa uuna sheegay super computer in koobkan uu halkaas Latin America sanadkan loo dhalmin doono koobka ka dhici doona dalka Qatar ee koobka adduunka ee World Cup. marka saaxiibayaal niyad jab ayuu ku riday laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo waxa uu sidoo kale uu niyad jab xun ku riday xulka Ingiriiska uu sheegay in sama final ay ku hari doonaan rigoorayaal. saaxiibayaal wararkeena habeenimo intaas ayaan idinku soo gabeynaa waana ku mahadsantihiin saaxiib la jaanqaadkeena.